dowladda Masar ayaa cutubkeedii ugu horeeyay ciidamadeeda u soo diraysa Soomaaliya si ay uga qayb noqdaan hawlgallada nabad ilaalinta Midowga Afrika ee loo yaqaan AWSOM. Xogo aan helnay ayaa xaqiijinaya in cutubkii ugu horeeyay ee ciidamada Masar ay ku soo wajahan yihiin Soomaaliya, iyadoo lagu qiyaaso ku dhawaad 1410 askari kuwaas oo qayb ka noqon doona dadaalada lagu xasilinayo dalka, gaar ahaan la dagaalanka kooxaha hubeysan iyo xoojinta hay'adaha amniga. Ilo xog ogaal ah ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada Masar ay wataan gaadiid dagaal iyo qalab ciidan oo casri ah kuwaas oo ka duwan kuwa ay adeegsadaan qaar ka mid ah ciidamada kale ee ka howlgala gudaha Soomaaliya, taas oo la filayo in ay kor u qaado awoodda howlgalka. Xukuumadda Masar ayaa horey u soo bandhigtay ciidamo si heer sare ah loo tababaray iyo agab militari oo casri ah, inkastoo waqtigaasi aan si cad loo shaacin ujeedada. Haddana hadda waxaa muuqata in qorshahaasi uu qayb ka ahaa diyaargarowga ballaaran oo ku wajahan qaybgalka howlgalka AWSOM. Wararka soo baxaya ayaa sidoo kale tilmaamaya in dhawaan si rasmi ah loo bilaabi doono daabulista ciidamada, gaadiidkooda iyo qalabkooda, iyadoo horey loo sii diyaariyay saldhigyada ay ka howlgali doonaan kadib qiimeyn ay sameeyeen khubaro ka socota Masar oo soo gaartay Soomaaliya. Waxaa intaa dheer, imaanshaha ciidamada Masar ayaa kusoo beegmaya xilli uu isbedel ku socdo howlgalka Midowga Afrika, iyadoo AWSOM lagu bedelay howlgalkii hore sida AMISOM iyo ATMIS, taas oo muujinaysa marxaladda cusub diiradda lagu saarayo xasiloonida iyo wareejinta amniga. Sidoo kale, falaqeeyaal amni ayaa tilmaamaya in ka qaybgalka Masar uu keeni karo isku dheelitir cusub oo dhinaca militariga ah, islamarkaana uu xoojin karo taageerida caalamiga ah ee Soomaaliya, gaar ahaan dhinacyada tababarka, tiknoolajiyadda ciidanka iyo la dagaalanka argagixisada. Dhanka kale, waxaa la filayaa ciidamada Masar in ay door muhiim ah ka ciyaaraan ilaalinta xarumaha istiraatiijiga ah, sugidda wadooyinka muhiimka ah iyo taageerida howlgallada wadajirka ah ee ay fulinayaan ciidamada Soomaaliya iyo kuwa Midowga Afrika, taas oo sare u qaadi karto kalsoonida shacabka iyo xasiloonida guud ee dalka.